الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وعن إذنكم السلام يا سلامة إسلامك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلامك بعد هل كان نجا هذا البضنية مفر راسات تلك marka hadda uu qaylso hadaliyo uu yiri waxaan ka gartay niyad sami marka niyad samidaas awgeed ayaan u istaagay aad iyo aadna waa idinkaga mahad celinaya. watii haday imaamku waa igaar la wareeyo soomaynan dhihin oo warma loo tumay marka horta qofka haddaan la waray wax nagama aad iyo aadaan mar labaad idinkaga mahad celinayna. waxaan rabaa marka inaan anugu mid taariikha iyo midda hadda na hortaala labadaas inaan ku soo gaabiyo oo aan ujeeddada waxa aan rabo aan tulka u sheegto wahe fursade. saad ka warqabtiin annaga markii xildhibaanada la dhisay waxaa wax noogu daraayeen ismaan caato ninka xilka maleegid badan maad garaysiin. waxaan isla dhiftimino waa maqli jirteen barlamaana isfeeray, barlamaana cali maxamed geedi mooshin ka keenay, barlamaana mataqaanaa ciidan diiday, waxaasoo dhan waa la soo maray. annagu marka wadaanta ceelkii waa ka soo saarnay dhinacii siyaasadda, dhinacii xooggana haddaa loo taagan yahay. xooguna maanta mid oo xataa haddaad fiirsatiin dhaqan gela waayo haddaad idinku aad dardartiinna hal maalimo ku dhammaa, haddaad fiirsatiinna 3 maalmood dhaafi maa. wixii meera u dhintay oo casabla u dhintay waxay ahaada magaaladan hala xureeya ma wax kala ahaada iyo cala sowdheere iyo kuwo kaloo lamid oo aan la soo koobi karin. waxaad ogeedeen waxay ahaaday oo kaarta meeshaas gurigii baanaraama laga hogaami jiray waxay ahaaday in magaaladan la xureeyo dadki iska lahayna ay ka taliyaan. sidaas awgeed marka intii 16 sanaba waxa loo tartamaya waxay ahaaday war makaaraan xigtaa loo bixi doonaa oo dadkuma inta uu qixi doonya mase inta uu qixi doonyaaho galgaduudiyaa laga dhici doonaa. kan waa qaxma hurta waaye, waa qaxma hurta mar haddaan la heshiiyeyso in dad la qaxiyo maa. waxaan idiin sheegaa barlamaanka cabdalla doorow iyo ninka la yidhaa iyo nin abukaatal oo axmed la yidhaahdo labada waxa loo dilay waxay ahaaday u dhashayaa loo dilay. ninkii u dhashayay qoren ilaan federaalka waxa waaye sharcigii gobollada lagu dhaqmi lahay inuu barlamaanku meel mariya waaye. wasiirka arrimaha dastuurka iyo arrimaha federaalka waxaa ahaa cabdalla doorow, ninka kalena barlamaanka ayuu guddigiisa madax u ahaa. labadiiba waa loo dilay, u dhashay bisaa loo dilay. annaga marka ha loo dhintee waa meelkeenno waa baasina, waa sharciyaysanta. ciidanka hirgeli lahayna waa keenna. haddii marka ciddaanu ay qaxdo idinka u sabab annaga waa ka keenna meesiye. marka walaalaheenu waxaan rabnaa soodintii hadda iyaga kaartadi caydiiday fiiraayaan kaartadi caydiid
xayaaha lagu naqdo soomaadan araga in hadda difaaca lagu jiro ilaa mataqaanaa meesha la yidhaha tawfiiq in mootooyinkii lagu jiro walama ogay aragtiin awalna wala laguma jiri jirin afar biloodkii kaartadhacay diidoo duugahaa la soo baxsh annagu marka kaartadeenii oo neera dhisdhe oo difaaca aheeda inaan ku ekaana maa kale annagaasu kulayno xoog balaydi kagama baahnee intaasoo nooma kari kartiin meeshii oo maxamed dheere iyo neera iyo ay dhigeen inaan meeshi saas u damaysanno oo reedooda annagaa ku keenayna dadkii wax ka qabanahay waa lahaayaahe inaad saan u fiirsatiin maad kari weydeen walaalaheeyo ilaa idinku dhaarsa waxaan idinka codsaa marka sidii ragga kaleba u sheega ramadaanay noogu ekaa jirtee buurkan dhinnaha layga wareejiyo buurkan dhinahoo kaha iyo ramadaan u dhaxeeya halahansiga ballanqaado mayga ballanqaadee haddaad meeshaas tagtiin haddii xoog kale laydinkaga raboodaanaa gardaran sidaa awgeed marka horta annagu meeshaasaan rabnaa in hawsha naloo geeyo tolkana waxaan ka cudur daaranaynaa annaga wixii hadda ka hor heeday waxay ahayd inaan goglasaana isugu nimaadno nimaan tolkiisa haysan siyaasad matali ma kariyo siyaasad waa dad